ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo ayaa maalintii shanaada afurin waxay ugu sameeyeen dadka danta yar duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan kaamamka barakacyaashahi. Gudoomiyaha golaha sare ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo Mudane Abuukar Shuute Xuseen ayaa hogaaminayay barnaamijkan maalintii shanaada afurinta loogu sameynayo dadka danta yar duleedka magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha oo hadal kooban jeediyay ayaa waxa uu yiri waxa inoo suurtagashay inaynu afurin u sameyno 450 qoys oo danyar ah kuwaasi oo aan awoodi karin inay helaan waxyaabo ay ku afuraan. Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonaan ilaa 30 maalmood ee bisha barakeysan ee Ramadaan, isla markaana ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo uu diyaar u yahay sii wadida ama sii dhamaystirka barnaamijkan lagu afurinayo dadka danta yar ee aan awoodi karin inay helaan waxyaabo ay ku afuraan. Kumaadsan soo gaarsiiyay maalintii shanaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Waa maalintii shanaad aan qabanayna barnaamijkeeni afurinta dadka danyarta ee duruufaysan. Ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo ururka markasta wuxuu diiradda saarayaa inuu u gargaaro dadka danyarta ah. Bishan barakeysan 30 maalmood waa sii wadi jirnay waana wadi doonaa sanadkii 7 oo yani bishan Ramadaan aan sameynayno afurintaani. Maalintana waxay noo gashay maalintii shanaad ilaa kumaasan. Waxaan rajaynaynaa insha Allah inta kala dhiman inuu Ilaahay si nabadgelyo inuu gaarsiiyo. Anagana waan ku dadaali doonaa 30 maalmood inaan afurin u sameyno. Maanta ay tahay maalintii shanaad waxaan noo suurta gashay inaan afurin u sameyno ilaa iyo 450 qoysood ah. Waa sii wadi doonaa maalinta ka dambeyso. Gudoomiyaha ayaa waxa uu markaasi fariin u diray dadka Ilaahay wuxuu dhiibay inay soo gargaaraan dadka sooman ee aan awoodi karin inay helaan waxyaabaha ay ku afuraan. Waxa uu la tilmaamay in bishan ay tahay bisha kaliya inta badan xoogga la saaro in sadaqa loo ururiyo dadka danta yar, isagoona geesta kala tilmaamay in dalka ay ka jiraan abaaro baasan oo markaasi waxyeello u geystay dadka iyo dunyada.